Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada shabakada Kobciya Media iyo Al-Ustaad Injineer Xasan Maxamuud Faraqle. Maanta waxaan arkaynaa presentationkan ayaynu diyaarsanay ayaan waxaan rabnaa sidii aanu ku save garaysan lahayn. Sidee ku save garaysanaa presentationka? Waxaad tagaysaa save wax kooda office button then hadhowdi save ama save as kamid ayaa tagaysaa. Kadibna waxaad dooranaysaa meesha aad dhiganaysid. Desktop tusaale ahaan ayaan dhigtay marka dambana waxaa halka ka dooranaysaa magacaad u bixinaysid ayaad ku qoraysaa. Kadibna haddii aad u baahan tahay waxaad ku xiri kartaa password ayaad ku xiri kartaa. Waxaad sayli kartaa passwordkii ayaad halka general ku dhufanaysaa tan hadhowdi passwordkii aad gelinaysaa. Enter baad dhahaysaa passwordkii ayaa dib u gelinaysaa. Enter ayaa sii dhahaysaa kadib save ayaad ugu daraysaa. Waxaad ugu daraysaa save. Okay, save as markaa dhahdid then hadhowdi ugu dambeyn wuxuu kaa sugayaa kaliya anoo hadda ma save gareynayo save ayuu kaa sugayaa. Ugu dambeyn marka waxaad dhahaysaa save ayaad ku dhufanaysaa. Sidaas ayuu documentigii kuugu save garoobayaa. Sidaas ayuu documentigii wuxuu noqonayaa mid kuugu save garaysan. Okay, see loo soo furtaa? Waxaa loo soo furtaa oo aan u soo furanaynaa tag cashirkii meeshii lagu save gareeyay double click passwordkiina geli. Passwordkii lagu xiray geli. Taasuu kuugu soo furmayaa. Ama waxaad u soo furan kartaa adigoo taga wax loo yaqaano office buttonka then hadhowdi control N taabta. Control N wax kooda control ku dhufta oo open ku sii dhufta. Kadib documentigii waxaad ka soo furan kartaa halkaas. Dooro meesha ay dhigtay then hadhowdi halkan ku qora magaciisi wuxuu ahaa hardware waa kan hardware video then hadhowdi open wuu soo furmayaa. Markuu kuu soo furmo caadi ayaad u galaysaa. Waxaa kale oo ka soo furan kartaa adoon open ba oran halkaas ayaad ku arkaysaa recent documents ku dhufo computer then saasuu documentigii kuugu soo furmay. La soco cashirka afraad. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.